maxaa ku kalifay dadka sool sanaagiya cayn inay maamul ay leeyihiin iyo ku dhawaaqdaan maamulkan looguma dhawaaqin in cidna lagu colaadiyo looguma dhawaaqin in cidna tartan lala galo looguma dhawaaqin in cidna dagaalo iyo nacayb ummadda lagu hanuuniyo oo lagu dhaqaajiyo maamulka waxaa loo dhisay waa laga badin waayay muddo 20 sano ah yaa ummaddaas maamul la'aan ay ku jirtay shirar dhowr ah oo maamulka Soomaaliyeed lagu sameeyay khaasatan xagga waqooyiga waa ka qayb galay waaba maqmaqlayaa maalmaha kan ninkaasu heshiis buu kamid ahaa dadkii nala galay oo burco wax ku saxeexay waa run shirka burco waa ka qayb galay garaado aaga ka yimid iyo dad mas'uul oo badan waa ka qayb galeen waxaan si rabaa inaan si sugan u sheego waxa annaka markaana nawaday haddana nawada waa nabad sidii lagu heli lahaa waa nabad sidaanu dadka iyaga ugu heli lahayn daraska iyagana ugu heli lahayn haddiiba ay muran gasho oo la yiraaho waraaqaanu haynaa la saxay horta kuwa la keeni maayo oo waraaqaanu saxaxnay in dalka lagu kala googooyo markaana ma aanan saxeexin marka dambeysana ma aanan saxeexin marnaba intaan noolahay ma saxeexayno waqtigu taariikhdu marba marxaladaha jira marba meel bay maraysaa marka bishii April iyo May 1991 waxaan ka badin weynay inaanu nabadda dadka geed dheer iyo geed gaaban u furo tiina iskama aan bedelina haddana iyada lafteedaan rabnaa haddiiba ay maamul Somaliland la yiraahdo oo abuurmay haddii uu hanan lahaa bal kala go'o haba dambeeyay waaba la isaga iman lahaa haddii uu hanan lahaa oo ummaddu waxay u ooman tahay ee ay rabto laga hawlgeli lahaa waxaaba laga yaabaa dadka qaarkood inay ku qanci lahaayeen oran lahaayeen warbal intii aan iskaga yar xawxawsano inta meel laga gaaray laakiin waxa sugan in maamulka Somaliland uu san goboladaas u hagar bixin waxalaala wuxuu u qabtayna ayaan jirin haddiiba ay dadkan samafalka NGO-yaasha wadankan aynu joogno oo kale ama Yurub ama Mareykan ayba damcaan inay meesha gaarsiiyaan in la yiraaho meesha lama tagi karo caruurta la'aanaysa lama talaali karo haweenka ku umulaya geed hoostiis ee ku dhig baxaya looma tagi karo xoolaha meesha abaaru markay yimaadaan ku dhamaanaya ceelal looma qodayo umana tagi kartaan taas waa mid u dhaxal gashay waa maran madoonta waa ta dhabta ah Somaliland doorashooyinkooda dadka dhulka u dhashay kama qayb galin ta madaxweynahooda in ka qayb galin ta golaha wakiilada in ka qayb galin ta dawladaha hoose in ka qayb galin intaasoo dhan waa arrin sugan midda kaba sii darani waxa weeye Somaliland baan isku ahayn hadda British Somaliland waxay ku salaysnay qabaa'il Ingiriiska heshiisyo la saxeexday waranaku Ingiriis heshiisyo lama saxeexay mid maanta dacwana lagu oogi karo loo oran karo British Somaliland baanu isla ahayn de khasab Ingiriisku meesha waa joogay dawladnimada bishii June 26keedii 1960 baa la helay bishii July 1deedana tii guud ee Soomaaliyeed baa la helay laguna midoobay haddayba noqonayso afarta cashaanu dawlad ahayn oo afarta cashaanu dawladda ahayn baa khasab la idin kaga dhigaya inaad naga mid noqotaan hadda ogoobay 60kii
ilaa 19 dadka aaga Somaliland ee la sheegay u dhashay qaran bay kamid ahaayeen dawlad Soomaaliyeed bay kamid ahaayeen madaxda Somaliland ee Cabdiraxmaan Axmed Cali Allahu naxariistee iyo Maxamed Ibrahim Cigaal Allahu naxariistee ninkan odayga ah ee la yiraahdo waagi dhaweyto electionka ina kaan isagu ma ba ahayn madax iyo mas'uul laakiin bardo qaranka uu dhaartay Ahmed Maxamuud Siilaanyo ilaa 64 ilaa isagii anigu markaan Soomaaliya ka soo wada baxnay anagoo mucaarada dawladda Soomaalidu ka mid ahaa markuu ugu hooseeyay shaqada markuu bilaabay 64 wasiir uu ka ahaa wasaaradda qorsheynta uu dhaartay mas'uuliyadaas agaasimo guud buu noqday wasiir buu noqday intii uu dalka joogay ama wasiir buu ahaa ama heer wasiir buu ahaa hadda intaana wuxuu u dhaaranaya calanka iyo dastuurka Soomaaliyeed bal waraaqahan hadda la sheegayo haddii baan geed quraca hoostii wax lagu wasaxay oo aan jirin oo dadkii iyo ummadii dhamayd ee dastuurkaas u dhaaratay ee wixii la manaafacaadsanaan lahaa la manaafacsado qaranku intuu jiray taa maxaa laga oranayaa Soomaalin cad lama oran annaka waxaanu ka badin weynay inaanu ka go'no oo bal waxa annaka noo diidaya hadayba jirto inaanu idhaahno Somaliland kama mid noqonayno maxaa dadka loo madalufinayaa maxaa dadka beenta loogu sheegayaa maxaa dadka maanta loogu horseedayaa dagaal sokeeye iyo in la isku dhamaado arinta ma rabo inaan ku dheeraado waa la wada degaa waa la isdhalay waxa la isiyahanu naqaanaa oo xeerinaynaa waxaan ku talin lahayn oo khaatumo loo dhisay in dadka khaatumo goboladaas khaatumo state of Soomaaliya loo aasaasay ta ugu horeysa inay iyagu nabad ku wada noolaadaan wiil 20 jir oo labada qowlal ka xumbaynayo qorisita wax naga qabtaan oo baahana iyadan xul kale baan ugu soo duulay annaga nabadda u baahan inaan isku badbaadino annaga nabadda dariska iyaga u rabna annaga qaaleen nala tahay annaga diyaar waa sidii awal badaaqa loo wadaagi jiray ceelasha looga wada cabbi jiray laysu wada dhalay inaanu xeerino waxaana dhibaysaa masaajidada dadka laga kicinayo iyo dadka mas'uulka ee madaxweyne iyo wasara ummadda hadda u kicinaysa dagaal sokeeye oo aad ma moodo in la leeyahay waa jihaad oo wixii ku dhinta jannaday gelayaan dadkaas meesha ku dhimanaya ama iyaga ha noqoto ama dadkan aan wax allaala waxay galabsadeen jirin ee guryahooda loogu imanayo ee lagu laynayo ee lagu xasuuqayo ee la rabo siday hadda wax u socdaan intii Yugoslavia ka dhacday ethnic cleansing oo macnaheedu uu yahay dhulkana annaka leh dadka sheeganayaana hadayna raacin waxba meesha kuma leh macnaheedu hadii la sarrifo waxa weeye waxa noo xalaala hadaanu awoodeeda la nimaadno inaanu idin gumaadno inaanu ethnic cleansing aanu sameeyno anaga waxaan leenahay taasu cid ay anfacaysaa ma jirto Soomaalidu waxay tiraa halba geela cunto abaada bal yaabkiise iyaga qaylada ugu badan hadda wado oo meeshii la tagaba dacwo la taagano waana la dagaalamaya waana la burburinaya magaaladan aan hadda joognay Oslo ugu nimi dad 20 sano lagu waday waana la xasuuqay waana la dhameeyay waxaanu door bidnay inaanu annagu ka xiroono waxa soo dhan cidii la arkaaba waxay oranaysaa war dadkan masaakiinta ah ee la laayay ee guryahoodii la dumiyay ee naftooda la cararaya maxaad u rabtaan hadda inaad idina dacwo hor la ogtaan
waxay u ekaadeen qolyaha kale waxay u ekaadeen inay af Soomaali kuma ay odhaneen duul culimo wareersaanu nahay war xaqayaale war bal meesha laga daba tago bal qolyahan loo akhriyay huwadaas war bal si dhab ah oo nasteexa oo Ilaahay laga yaabayo waxa loogu sheego war hal baaba geela xunta cabaadee bal noo kaadiyo na dhageysta waxaan diyaar u nahay hab Allah la habkay doonaan inaan ku wada hadalno waxaan sayeelaynin oo marnaba aanan ogolaanaynin anoo maamula anoo dawladda adigoo shacbiga ila shir oo waliba anigu aan ku xulo haddii Ahmed Maxamed Maxamuud ina bureeqa haddii uu diyaar u yahay hadduu nabad rabo meel allaala meeshii adduunka ay ka rabaan baan diyaar u nahay inaan la fadhiisano wadaadkii muxuu yidhi maynako cali geri ay soo askareeyeen haddii hadda noo dawladeeyaan oo yidhaahaan annakoo dawladaanu idinkoo shacbiga idinla shiraynaana warnama qabato idinkana yeeli mayno wax kastana waa u huraynaa inay taas suurtoodin aniga iyo dalka Ethiopia afar faataxay sumaana diri jir dadka qaarkoodna waxa laga yaabaa inay yiraahdaan wallahi ninkii inta umuraaqoon jiray Soomaalinimo iyo Ethiopia la iska caabiyo maanta waxa sabab geeyay in dhulbaanta buu noqday cidii horta sida hadda wuxuu socdaan waaba ahay laakiin waxaan door ka bidnay dadka dhulka u dhashay waxa lagu dhaleecay inay shabaab yihiin inay oana la faraxsan yihiin inay goboladaas halaq mareen noqdeen Ethiopia ba lagu dadaalay in lagu jabiyo oday Allah naxariista war Soomaali wuxuu oran jiray waqtiga isticmaalka war gaal laga maarmi maayo laga tagi maayo wariyaan adiga lagu dilin gaalka waroo Ethiopia cidii qabtay inay nagu soo fayso war waxay nagu kaliftay Ethiopia gurgeeda inaan ugu tagno haddana annaka iyo Ethiopia waxa naga dhaxeeyana waa naqaan hadda wax soo bambaxay oo leh idinka iyo Somaliland baan idin dhexdhexaadinaynaa at the highest level heerka prime minister ka dalka Ethiopia jirta hadda Ethiopia ma aha NGO ma aha danaheeda ay leedahay annaba inta maanan garan waayin laakiin maanta waxaan ka maarmi weynay si ummadayadaas meesha maxastaydu taalo si nabad aanu dadka iyaga ugu helo waa mahadsantihiin